qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ay ku imanayaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland badbaadada dadweynahani ayaa iyagu siyaabo kala duwan uga hadlaya aragtida ay ka aaminsan yihiin imaanshaha uu madaxweynuhu ku imanayo magaalada Hargeysa waa dalina la jaara waa laba madaxweyne waa laba dalo jaara way wada hadli karaan way laga dagi karaa Muuse waa ka dagi karaa Hargeysa xamar ninka la yiraahdo Farmaajo waa ka dagi karaa Hargeysa istaaf la'aan buu ku mari karaa waxaan u sheegnaa laakiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay luuq weylolasa gada waa oloolayaan waxaan leeyahay madaxweyne galmudug saddex madaxweyne saakaleeda wax soo hagaajisid ee aanu wax inoo soo hagaajisid mudana madaxweyne kuma aanu xaqirano waan isugu imanana miiska wada hadalka waxaan leeyahay maanta waxaynu gaadhnay guusha aynu gaadhnay waxa kamid ah mar haday madaxweynayaasheeni heshiiyeen waa u hambalyeynay waan khaldabaan waxay ka soo doodaanba waa farmaajada inuu yimaado maaha wana qabatay buu ku sameeyay Soomaaliland dagaalihii oo dhan buu ku xayir maanta inuu yiraahdo waa imanaya intuu isku soo beego Abiy Ahmed macquul maaha wada labaad laba nin oo Soomaaliya Itoobiya u dhaxaynaysa hadduu imanaya isagoo kaligiisa yimaado bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdinuur Ismaaciil Digeed oo jooga Laascaanood runaantii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa arrin bogaadinteeda leh waxaan ku talin lahaa shacabweynaha reer Soomaaliland ee reer Hargeysa inay si kaliya laaba u soo dhaweeyaan madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyay waxa hadalhaynta ugu badan ee gobolada Soomaaliland iyo sidoo kale caalamka intiisa kale laga hadalhayay safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay ku imanayaan magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Axmed Alhoon Cable TV Laascaanood adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida